Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaan walaalahay Soomaaliyeed meel kasoo joogtaan. Waa mar kale iyo walaashiin Xabsa Shire kusoo dhawaada channelka hooyada maanta. Haddii anigu cusub tahay fadlan subscribe noo saar. Haddii hore aan noola joogtin aad u mahadsan tahay. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo maxaa lahaye topic kale oo cusub ama barnaamij kale oo cusub oo ku saabsan ilmaha. Waxaa jiro ilmaha dhashay oo yaryarka wax ku dhaco oo la dhaho cabeebka. Qofkii yaqaan wuu yaqaana, qofkaan hore u aqooninne waxaan rabaa hadda inaan sharaxaad ka bixiyo iyo qaabka uu ku dhaco iyo sida looga hortago ama sida aad u daaweyn kartid. Inta badan horta asi ka hortag ma lahan oo gooni laakiin waxaa jiro qaabab aad ku daaweyn kartid. Cabeebka marka cunuga uu ku dhaco see lagu gartaa. Cabeeb horta maxaa la dhahaa? Cabeeb waxaa waaye English waxaa lagu dhahaa thrush la dhahaa. Waxaa waaye yeast infection oo ku dhaco carabka iyo afka. Waana infection iska caadi oo maxaa lahaye oo ku dhaco ilmaha iyo hooyada. Cunuga iyo hooyadan way isku gudbiyaan maadaama cunuga iyo hooyada uu naaskeeda uu nuugayo, hooyada naaskeeda uu gudbiyo dhacdo. Marka maxaa sababo inta badan waxaa lahaay germska jirkeena wuu ku nool yahay lahaay. Qaar kamid germskana waxba ma naga dhibo, qaarna yacni dhibaato uu keensadaa oo infection uu sababi karaa. Markii uu dhaco infectionkaas uu zaid u noqdo waxaa loo yaqaanaa lahaay candida maxaa la dhahaye ama albicans wuxuuna ku koraa ama ku weynaadaa cunuga afkiisa. Marka bacteria waaye iyo fungi. Bacteria iyo fungigana waxaa la dhahaa inta badan jirka ibni'aadamka way ku nool yihiin. Qaar marka dadka wax u dhibo qaarna wax ma u dhibaan. Marka cunuga yarka oo hadda dhashay difaaca jirkiisa aad u hooseeya darteeda wax walba way soo weerari karaan. Marka hooyada waxaa laga rabaa oo muhiim in ay cunuga naaska aad u nuujiso maadaama naaska uu difaac u yahay. Cunuga 6 bilood oo ugu horeyso aad ayay muhiim u tahay hooyada inay wax kale aysan siinin, biyo ayna siinin, caano kale aysan siinin, naaskeeda si fiican u nuujiso oo naaskan inta hore bas ay nuujinine ilaa uu ka dhameysanayo naaska eber ka naqanayo si fiican naaska u siiso si uu uga naqdo difaac cudurada soo weerari lahaay. Marka maxaa keena marka cabeebka waxaa kaloo keeni karo cunuga difaaciisa oo yar aan dhahnay. Waxaa kaloo keeni karo hooyada markii antibiotics ay qaadato ama daawada qalajiyaha. Waxaa dhacdo daawada qalajiyaha waxay la dagaalantaa bacteria iyo waxaas jirka soo weerarto. Marka bacteria marka waxay tahay laba nooc, mid fiican iyo mid xun. Haddii antibiotic la qaato bacteria fiican xataa way dilaysaa oo marka waxaa sababmayo inuu dhaco bahashii thrushka ama cabeebka inuu cunuga afkiisa ku koro. Bacteria waxaa kaloo ay jeceshahay lahaay meelaha kuleelka iyo qoyaanka iyo waxaas ay jeceshahay. Soo cunuga afkiisa waa meesha ugu fudud oo ku dhici karo because qoyaan waaye afka cunuga maanta isku xiran yahay iyo hooyada naaskeeda sidoo kale asna qoyaan waa caanaha kasoo baxaya mar walbo. Haddana waqtiyada ugu horeeya hooyada markay umusha ay tahay naaskeeda caana aad ay u badan yihiin cunugana ma qaadan karo because calooshiisa zaid ay u yartahay tankiisa maahan. Mar walba marka waa in lagu celceliyaa cunuga naaska oo maanta lagu celiyaa. Marka waxaa lahaay cunuga infectionka waxaa kaloo uga dhici karaa xafaayada oo qaybta hoose uga dhici kariyaa yacni diaper rash waxa la dhaho oo cunuga inuu dabada ay ka gaduudato oo xafaayada uu dhibsado. Marka hooyada waxaa laga rabaa mar walba xafaayada inay ka bedesho hadduu ku xaaro kaadida ay ka bedesho because way gubayaan infectionkina wuu sii dhalanayaa. Marka inay dhaqso uga bedesho. Calaamadaha maxaa waaye marka lagu garto cabeebka waxaa afka oo cadaado cunuga carabkii caanka gudaha dhanxanaga fururaha hadduu zaid u daran yahay ilaa fururaha uu soo gaaraya. Cunuga inuu afkiis dhiig ka imaado, inuu afka ka gaduuto, maxaa la dhahaye cunuga dabeecadii uu ka dhunto oo xanaaq badan yeesho oo hin badan yeeshto, inuu diido cunuga naaska inuu nuugo because afka xanuunka dartiisa. Marka ilma qaarne hadduu ku dhaco waxba ma dareemaan iska caadi waa soo haayo naaska iska nuugi karaan wax dhibaatana aan laga arkin. Hooyada marka cabeebka ayadana uu naaskeeda u gudbo ama thrushka u gudbo infectionka u gudbo see lagu ogaadaa? Waxaa lagu ogaadaa hooyada naaska ibti oo ka dilaacdo oo ka gaduudato oo maxaa lahaye danqato xanuun noqoto inuu maxaa lahaye naaska nuujinta ee aad u dhibsato ee xanuunto markii ay nuujinayso iyo marka kale tabo. Marka maxaa lagu sameyn karaa oo lagu daaweyn karaa? Waxaa jiro daawo ay dhakhaatiirta ay qoraan oo la dhaho Miconazole pomade waaye oral gel oo waxna ka dhibeynin cunuga afkiisa.
maxaa la dhahayay la mariyo hooyada marka waxaa la rabaa intays daawada ee marinin inay afka cunuga ee ka nadiifiso. waxaa soo qaadanaysaa faashad nadiif ah oo Star ee farmashiyaha laga soo gaday gacmaha iska soo dhaqay farta ku duubanay biyo qandac ah oo si fiican kow hore lasoo kariyo qandac ah afka si fiican looga nadiifiyo faruuraha carabka dhanxanaga meel kasta oo wax cad ku yaal si fiican looga tiro kadib bomaatadaas looma mariyo cunug waxa marka dhibaas weyn u reesanaysaa. hooyada naaskan waa inay daaweysaa maadaama labadiba infectionka ay qaadeen way isku gudbinayaan mar walba haddii mid kaliya la daaweeyo kan kaleetana wax faa'iido ma lahan oo weli leeyahay. marka labada dhinacba in la daawo hooyada naaska iska nadiifiso daawadaas ee marsato dhar ku dhegan aysan qaadanin oo kuleel qoyaanka u xareynayo orajsiinka iyo waxaas iska dhaafto ama kiishaliga dadka qaar see dhahaan. marka waxaa la rabaa hooyada inay ku dadaasho inay hawo ee hesho ee leersato oo wax ku dhegan aysan gashanin cunugana isaas uu daawasay insha Allah wuu ka nadiifsamayaa. marka waxaa jira waxyaabo natural ah oo hooyada isticmaali karto oo caawinayo inuu infectionkaas uu ka fogaado ama yeast infectionkaas uu dhaco. maxaa ka mid ah yogurtka cunug yarka hadda dhashay wax ma cuni karo hooyada naaska bas inay ugu dadaasho waa ayada marka waxaa la rabaa yogurt badan inay isticmaasho. waxaa kale isticmaali kartaa saliid qumbada waa si wax fiican waaye inay cuntada ku darsato naaskana iska mariso mar walba naaska cunuga nuujiso ama iska dhaqdo inay maxaa la dhahaye marso saliid qumbada mariso. maxaa la dhahaye maxaa la rabaa biyo badan inay cabto hooyada saas insha Allah marka way ka reesanaysaa. marka cabeeb waa intaas sidaas ayaan lagu daaweeyaa. waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka fahanteen qofkii hore u yaqaanana wuu yaqaanaa maasha Allah qofka aqoonin hadda ha barto hooyooyinka cusub inta badan aqoonin oo markay arkaan la yaabo. marka cunug walbana kuma dhaco ilmaha qaar oo ku dhacaa ani hadda labada oo hore aan dhalay ma arkin trash ma arkin laakiin cunugeyga dambe hadda maxaa la dhahayay wuu igaga dhacay afka dhan ka cadaaday marka saas ayaa yeelay waa ka nadiifiyay daawada mikanazolka ka mari alxamdulillah wuu igaga fiicnaaday. marka hooyo kasto cusub inta badan way la yaabtaa waxyaabaha qariibka cunuga ma taqaano wixii soo wajaha ma taqaano. marka waxaa fiican in hooyada haddii dad waaweyn la joogin oo yacni u faa'iideeyo oo baro waxaan waxay yihiin way ku wareereysaa waxay isleedahay waxaan maxaa waaye way ka naxaysaa. marka ani waxaan u sameynayaa inaan u fududeeyo hooyooyinka si ay u ogaadaan macluumaad ku saabsan ilmahooda inta ani aan waxaan dheerahay ama ilmaha u dhala darteed experience aan u helay ama waxaan akhriyay aan experience ka helay. marka waa mahadsantiin dhammaantiin waxaan idiin rajeynayaa inuu ilmaha koriska ilaahay u fududeeyo hooyooyinka maahan wax sahlan. waxaan anigana rajeynaa inaan soo dadaalo aan idinla wadaago barnaamijyo badan oo hooyooyinka anfaco biidnillahi alkariim. adinkana waxaa igu caawisiin in oo la wadaagtiin hooyooyinka kuwa cusub iyo kuwa aqoonta aan u lahayn ama wax sida loo baara aan aqoonin. internetka waxa waa baaxad weyn yahay wax walba ku saabsan nolosheena waa laga helaa. marka qofka aan aqoonin sida loo raadiyo waxyaabaha uu kusoo wajaho waxaa fiican inuu helo qof caawiyo oo wax ka fahmo ama wax ka qaato. marka ani waxaan usoo gudbinayaa hadda waxaa waaye in hooyooyin badan ka jaahil baxaan waxyaabaha qaar aniga waxyaabo badan aan aqooninaa jiray laakiin aan ku faa'iidaystay aan ka dhageystay ama ka akhristay majallaad ama articles iyo waxyaabahaas aan ka akhristay. marka soo dhawaada subscribe-ka iyo like iyo comment-ka idinka dhinaciina waaye qofkii hore oo ilmaha thrush uga dhacay ama cabeebka uga dhacay hanala wadaago siduu ula kulmay iyo siduu u daaweeyey. waxaa jira dad dhaho cunuga cabeeb markuu ku dhaco malab ha loo mariyo please malab cunuga ha u marinina. ilmaha yaryarka oo hadda dhasheen malab ma xamili karaan malabka aad u quwad weyn yahay cunuga ilaa sanad uu ka gaaran dhakhaatiirta way ka digaan in cunug malab la siiyo because waxaa ku jirto maado ama I don't know bacteria oo waxaa la culus oo cunuga haduu dhibaato weyn calooshiisa u geysan karto. marka ka ilaaliya malab iyo waxa caado dhaqameed iyo waxaas ka dhaafa daawada dhakhtarkaaga la tasho dhakhtarku wuxuu ku siiyay le u mari afkana ka nadiifso insha Allah wax walba way hagaagayaan. waa mahadsantiin dhammaantiin jazaakumullahu khayr. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.